السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada Hikachi channel. magacaygu waa Muxiidiin. Maanta waxaan jeclahay inaan la wadaago cashar cusub. Casharkani wuu ka duwan yahay casharadii hore ee noo soo socday. Casharkani ciwaankiisa waxaa la yiraahdaa new words. New words. Erayo cusub. Words waa erayo, newna waa cusub. New wax walba iska taqaanaa. New year wax taas ama qashan. marka maanta maxaan qaadanaynaa cashar ah new words erayo cusub. erayada cusub maxay yihiin? waa erayo nolosheena ama si maalinle ah muhiim noogu ah, laakiinse markii annaga naloo eego maadaama aan bilownahay nagu cusub. So waxaan isku dayaynaa casharadii hore erayo aan ku jirin laakiinse maanta cusub inaan soo gudbino. aan u galna casharka. Alright, erayga halkan waxaa ku qoran number, halkan waxaa ku qoran erayga, halkan waxaa ku qoran macnihiisa. Okay, marka halkan waxaa ku qoran numberkii 1 2 3. maanta waxaan qaadan doonaa haddii Ilaahay idmo 20 eray. 20ka eray waxay noqon doonaan kuwa wax badan in ku soo siyaadiyo oo aqoon ah haddii ay idmo. Alright, marka erayga halkan waxaan leenahay number 1. eraygaas hebela macnihiisana waa kaas baan leenahay. marka hadhow haddii Ilaahay ma aragtay inaad qoratid macnihiisa, ha isku dhibin hadeer oo ha ka fikirin in eray macnuhu ku dhaafaan waxa sababta oo ku hor qoray. hadhow markuu cashirku dhamaado inta buuggaaga warqadaada soo qaadatid oo si fiican u dhageystid, qoro oo meel ku qoro haddii la helin, si waxa weeye hadhow marka u baahatid adoon YouTube-ka iman aad heli kadib meelna aad ku qoratid. buuggaaga waa inaad samaysataa, waa hubaal. already aan hore u galno. marka erayga koowaad waxaa la yidhahdaa afraid. afraid maxaa laga wadaa? baqaya. qofka tusaale ahaan oo kale waxbuu ka cabsanaya, waa cabsi. baqaya ama cabsanaya ama cabsi. already erayga labaad agree waa ku raacid. ra'yi ama go'aan baa qofka ku raacsan. ra'yi buu ku soo jeediyay because I agree with you, waa kugu raacaniyo. marka waa ku raacid qofka inaa ra'yi ku raacdid ama go'aan uu qaatay oo kale aad ku raacdid. waxyaalahaas kala leeyahay agree, laakiinse raacidda caadigeeda qofka inaad daba socotid ma aha. agree waa ku raacid, ama ra'yi baa ku raacday ama go'aan baa ku raacday. alright, erayga saddexaad waa angry. waxa weeye waa xanaaqsan weeye. halkan macnaha xanaaqsan waa qof xanaaqsan, wuxuun baa ka xanaajiyay, waxay doonaan ha ahaadeen. cara ka muuqato, wuu qaylinayaa, dagaal buu wadaa, waa qof xanaaqsan. alright, arrive waa imaansho, waa timid. arrive waa imaansho, gurigoo kala imaatay, iskuulkoo kala imaatay, masaajidkoo kala timaaday. waa arrive, waa imaansho. okay, attack waa weerarid. attack waa weerarid, wana soo weeraray annagoo nabad iyo xasilooni isaga jirin. alright, erayga shanaad marka waa attack, waa weerarid. okay, erayga lixaad, erayadii weli waa sii socdaan. erayga lixaad waxaa la yidhahdaa bottom waa xagga hoose. tusaale ahaan oo kale kabahaaga oo kale xaggooda hoose, ama waxa weeye cagahaaga xaggooda hoose. waxay doonaan ha ahaadaan, adiga xagga hoose ee wuxuun ayaa la yidhaahdaa. kursigaa ku fadhida xaggiisa hoose, waxaasoo dhan bottom baa la yidhahdaa, waa hoos weeye, waa hoos. alright, clever erayga toddobaad waa clever, waa xariif, waa qof maskax badan. alright, cruel erayga sideedaad cruel saasaa ugu dhawaaqsaa cruel. meeshii sida hadda ujeedad crew baa ku si kay ahaan baa loo akhrinaya. halkan sidoo kale clever kayb ahaan baa loo akhrinaya. cruel iyo clever. I am clever student, waxaan ahay arday xariif. she is very cruel, aad iyo aad ba xaasiyad u tahay. waxaan qoftan ama he is very cruel ama he is cruel whatever. waa xaasid. cruel maxaa laga wadaa? waa qof xaasida oo aan u ogoleen dadka kale horumar iyo waxa weeye wuxuun inay gaaraan, wax inay dheeraadaan. qofka aan u ogoleen bariyada xaasid. xaasidku waa carabi, niyo Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa bal hoos ku soo qora. aniga hadda ma xasuusto, iguma soo dhacday. hadday igu soo dhacdana eeba idmo waa inay soo qoraya haddii ay lahayd. alright, erayga sagaalaad waa finally ugu dambayn. tusaale ahaan kale wax aad sugasay oo mataqaanaa waqti badan qaadanayay baa waxa weeye meesha ugu dambeeyay yimaada oo dhammaadka imaaday. markaas waxaa la yidhahdaa finally the football is finished. ugu dambeyntii ciyaartu way dhammaatay. tusaale kale ciyaar baa caawa daawanaysay 90kii. waxa weeye waa meelihii ugu dambeysay. finally ciyaartu waa dhammaatay. okay, ama ciyaarta tusaale ahaan kale ciyaaraha markii la qabanayo kooxa
final ciyaarta finalka maxaa laga wadaa waa ciyaartii ugu dambeysay oo kooxda guuleysata koobkaas qaadas marka finally maxaa laga wadaa waa ugu dambeyn hide ereyga tobnaad hide waa qarin hide waa qarin alright ereyga 11aad hunt waa ugaarsi hunt waa ugaarsi okay ereyga 12aad a lot waa badan tusaale ahaan meelaha ku arkid waxaa ka mid ah thanks a lot aad baa u mahadsantahay marka marka qaarka aad bay noqon kadhaa marka a lot of water biyo badan bay noqon kadhaa biyo badan I have drink a lot of water biyo badan baa cabay wey I have drink I just drink a cup of water haddan koob cabay I don't drink a lot ama waxa weeye wax badan ma cabi karo hore ereyga 13 middle waa dhexda ama waxa kala barkood dhexda qofka oo kale ma aha laakiin middle wax meesha markii xagga iyo xagga laga soo xisaabiyo marka meesha dhexda ay isugu imaadaan tusaale ahaan kale gacantaada dhexdeeda oo kale waxay noqon kadhaa suxulka lugtaada dhexdeeda oo kale waxay noqon kadhaa lowga macnaha waxa la rabaa meel kala barta wuxuun kala bara in the middle of night kala barkii bartamihii habeenka dhas in the middle of day midday baa liyada inta badan hadda waa brandon insha Allah ama midnight baa liyada waxa laga wadaa middle of the night alright after 10 waa moment waa wax yar can you just give me a moment macnaha ma isin kadhaa wax yar ma isin kadhaa can you just give me a moment macnaha wax yar ma isin kadhaa ilbriqsi ma isu kadhaa just a moment oo kale ama ilbriqsi oo kale ama wax yar isu okay ereyga 15 pleased waa faraxsan weeye pleased waa faraxsan pleased haddii dhiida laga reebo ugu dambeysa waxay noqonaysaa fadlan bay noqon kadhaa laakiin markii pleased liyada waa faraxsan weeye please horta sidoo kalena waxa la yiraahdaa faraxsanaan alright laakiin hadda maxaan ka wadnaa ereyga 15aad ee maanta aan qadano waxaan ula jeednaa pleased la yiraahdo faraxsan alright ereyga 16aad promise waa ballan qaadeed she promised me to cook dinner tonight waxay ii ballan qaaday in cashada karin doonto gabadha walaashaa rabtaa inaan mataqaanaa dambiga saartid xaafadda la heshiisto markaasaa leedahay waxay ii ballan qaaday inay mataqaanaa cashada karin doonto caawo laakiinse way buriso ballanta alright ereyga 17aad waa reply waa warcelin ama jawaabid she replied to me way each warcelis she didn't reply to me ima warcelin okay I asked her question waxaan weydiiyey su'aal and she didn't reply what is going on here okay marka waxa la su'aal baan weydiiyey ima waxa way warcelin maxaa meesha ka dhacay niyo maxay yaani ku fikiraysaa tusaalahan ka waxyaalaha tusaalayaasha eeba hadduu idmo waxaan ka dhigi doonaa ayagu sheeko ah baan soo qaadi doonaa markaasna si deeply ah ama si qoto dheer baan u faahfaahin doonaa haddii eeba idmo ereyga 18aad safe waa nabad qaba ama bad qaba safe I am safe here halkan aniga nabad baan ku dareemayaa iyo xasilooni iyo deganaan well waxa weeye si wanaagsan she done the job so well shaqada waxay u qabatay si wanaagsan si aad u wanaagsan she can dance so well waxay u ciyaari kartaa ama he can dance wuxuu ciyaari karaa ciyaartii qofka ciyaarkeeda anaga Soomaali aan lahayn ba ka wada wuxuu ciyaari karaa si wanaagsan alright ereyga 20aad baan leeyahay ee ugu dambeeya maanta casharkan waxa la yiraahdaa trick waa maxay trick maxaa laga wadaa khidad baa laga wadaa khidad waa maxay khidada waxa la yiraahdaa wax khidad waa carabiya weey laakiin maxaan ka wadnaa khidada waxa la yiraahdaa qorshe aan qof kale maskaxdiisa waxa weeye uga caqli badinaysa waxa rabtaa qof kale inaad ka caqli badisid marka khidad ama farsamada aad adeegsatid haddaan farsamo dhihi lahaa oo kale waxyaabo badan baa maskaxdiina kusoo dhacaysa laakiin khidad haddaan iraahdo waxa weeye waxaan hubaa in waxa ugu horeeya niyadiina kusoo dhacaysa ay tahay qof macnaha qof kale yani ama wax kale raba inuu ka caqli badiyo marka khidad baa leeyahay trick waa maxay waa khidad waxaan rajaynayaa 20ka erey inay maanta
qaamuuskaaga erayada ay wax badan kusoo kordhiyeen, sidoo kale aqoontaadana ay sare u qaadeen. waxaan rajeynayaa haddii ilaahay idmo inaan casharo noocan oo kale ah ama erayo cusub la yidhaahdo aan si taxanaa ka dhigno. casharkani wuxuu noqon doonaa kii koowaad, laakiinse ma joojin doono. sidoo kale haddii eebbe idmo waxaan samayn doonaa sheeko ku qotanta 20kii eray ee maalin walba aan baranay, si aad u fahantaan waxa laga wado, meelaha loo isticmaali karo iyo micnahooda xaqiiqda. sababtoo ah marka hadda ereyga Soomaali ku safiro macnihiisa dhabta ah ma helaysid runtii, laakiinse waxaa helaysaa faham baa ka helaysaa. sababta ereyga wuxuu yeelan karaa wax ka badan hal macne. Soomaaliga buu arki karaa macnaha ereyga wuxuu yeelan wax macnayaal badan buu yeelan karaa. sidaa daraadeed markii word la geliyo oo kale ayaa ereyga macnihiisa si dhaba loo fahmaa. sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan sheeko ku larno casharkan haddii ilaahay. marka casharka xiga ama kan ku xiga waxaan ka dhigi doonaa sheeko qusaysa erayadii maanta aan baranay. waxaan rajeynayaa isu soo noqod wanaagsan. fadlan haddaa kanaalka ku cusub tahay subscribe saar. haddii aad cashar ka heshayna like walaal hanala dhaaf, wax weyn bay noo taasaa. casharka haddaad daawatid oo aadan macnaha jeclaysan waa wax macnaha dee annaga xaggayaga ah, laakiinse haddii casharka aad ka heshay oo wax ka faa'iiday adigana waxaa kuu habboon inaad mataqaanaa mahad celisid. mahad celintaadana waxay noqon kartaa inaad like saadhid, haddaad ku cusub tahay subscribe saadhid, haddii aad wax qabtid aad faallada kusoo qordhid, su-aala qabtid. waxaan samayn doonaa hadda kadib group WhatsApp ah oo aan ku wada sheekaysan karno, sida maalintii haddaa wax iga baahataan oo kale ay soo weydiisaan erayada haddaa wax iga baahataan. sababtaa wax walba YouTube-ka kama heli kadhaa. marka waxaan rabnaa adiga muddo aad u gaaban inaan wax weyn qabanno oo luuqadda wax weyn ka bedelno. sidaa daraadeed waa inaan si fiican iskula shaqaynaa, wax isla qabanaa, aan hal mara dhaqaaqnaa haddii ilaahay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. guul iyo gobonnimo ayna rajeynayaan. jimco wanaagsan meel walba aad dunida ka joogtaan, waqti walba inay tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.